kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka ay Midowga Afrika uga hadlayso xaaladda doorasho ee dalka iyo madasha badbaado qaran oo shuruud adag u gudbisay Midowga Afrika kor kulankooda. Madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo war cusub ka soo saaray xaaladda doorasho ee Soomaaliya muxuu ka yiri muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo miyuu soo saaray go'aamo karana dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. Siyaasiyiinta mucaaradka ah oo bilaabay inay ishubeeyaan iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo iibsaday hubkii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal. xogo ku saabsan halka la geeyay hubkan ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah. Wararkeena kalena waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shaqadii garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo maanta hakad gashay kadib markii uu dagaal gacan ka hadala dhex maray shaqaalihii garoonka. Haddaba maxaa ka jira in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan? Waase sidee xaaladda guud ee garoonka Muqdisho? iyo mid kamid ahaa dhaqaatiirtii ugu caansanayd magaalada Muqdisho oo la dilay iyo faahfaahin ka soo baxay dilkaasi. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana duhur Khamiisa 22 bisha Afraad ee Abriil sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada. mahadsanidin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay ee shirka Midowga Afrika ay uga hadlayso xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. shirkan ayaa waxa uu ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee xarunta u ah dalka Ethiopia sidoo kalena xarun u ah Midowga Afrika. waxa ay ka hadlayaan ama ay ka arrinsanayaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay Soomaaliya ee ku saabsan doorashada iyo muddo kordhinta loo sameeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. haddaba shirkaasi ka hor inta uusan furmin madasha badbaado qaran ayaa shuruud adag u gudbisay Golaha Midowga Afrika ka hor kulankoodii maanta. madasha badbaado qaran ayaa qoraal u dirtay Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika oo maanta kulan ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya. qoraalkaasi oo la mariyay safiirka Djibouti ee Ethiopia Mohamed Idris Farax oo ah gudoomiyaha iminka golahaasi. kulanka golaha ee maanta waxaa la filayaa in looga hadlo isku day ee Midowga Afrika uu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo dhinacyada Soomaalida kadib cadaadis ka yimid beesha caalamka oo keenay in madaxweyne Farmaajo uu dalbado dhexdhexaadintaasi. qoraalkan ayay madasha ku sheegtay inay soo dhaweynayso dhexdhexaadin dibadeed oo loo sameeyo dhinacyada Soomaalida. hase yeeshee waxa ay sheegtay in wada hadal kasta ay qasab tahay in saldhig looga dhigo diidmada muddo kororsi sharci darrada ah ee 2 sano ay ku tilmaameen iyo ku laabashada wada hadallo ku saabsan fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashooyinka. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caqabad ku yahay inay dalka ka dhacaan doorashooyin daafuran nabad ah oo loo dhan yahay uuna isku dayayo in uu awood u adeegsado ficilada dalka waxyeello gaarsiinaya. sidaasi daraaddeed waxaan ku baaqaynaa in Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada Midowga Afrika uu qaado tallaabo degdeg ah oo looga hortagayo in arrintan ay noqoto mid dhab ah ayaa lagu yiri qoraalka. qoraalka ayaa intaasi ku daray in tallaabada ay qaadeen baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka ay ahayd mid aan sharci ku fadhinin balse ay sidoo kale ka hor imaanayso dastuurka maadaama golaha shacabka muddaxileedkiisu dhammaaday uu muddo kororsi ku ansixiyay iyadoo aanu kooram ka buuxin iyo in aqalka sare uusan ansixin. waxay tallaabadaasi ku qeexeen mid dembi ah oo musuqmaasuq ah taasi oo halis gelinaysa xasiloonida aan cagaha badan ku taagnayn Soomaaliya bay yiraahdeen madasha badbaado qaran. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qaybihiisa hore ayaa la socotaane ergeyga joogtada ah ee Vietnam u jooga Qaramada Midoobay ahna madaxweynaha Golaha Ammaanka ee bisha Abriil Danjire Dang oo ka hadlayay fadhiga Golaha Ammaanka ayaa soo hadal qaaday xaaladda adag ee Soomaaliya gaar ahaan khilaaf ka hareeyay doorashooyinka dalka. Danjire Dang ayaa marka hore shaaca ka qaaday in Vietnam ay walaac xoog leh ka muujinayso xaaladda murugsan ee Soomaaliya isagoo oo tilmaamay in sii socoshada khilaafkan uu caqabad ku noqon doono hanaanka loo wajahayo doorashada 2021. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dib loo bilaabo wada hadaladii ku saabsanaa doorashooyinka u dhaxeeya dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir. waxa kale oo intaasi ku daray in Vietnam ay taageerayso dadaalada socda ee horey loogu sii ambaqaado nabadda xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. waxaan taageeraynaa dadaalada dadka Soomaaliyeed ee nabadda xasiloonida iyo horumarka ayuu yiri ergeyga joogtada ah
ee Vietnam u jooga qaramada midoob ahna gudoomiyaha ee golaha ammaanka ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay qaadato doorkeeda isla markaana ay gacan ka geysato dadaalada lagu dhameynayo xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya. waa hagaag haatan haddii aynu fiirino hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu soo waramayaa in uu iibsaday hub iyo gaadiid dagaal. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa la sheegay in uu soo iibsaday gaadiid dagaal iyo hub fara badan oo uu isku difaaco sida inoo xaqiijiyeen ila wareediyo ee xog ogaal ah. xogtan aan helnay ayaa waxay tilmaamaysaa in murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu soo iibsaday gaadiid gaaraya ilaa iyo 8 gaari oo kuwa dagaalka ah iyadoo ay horay ugu yiileen gaadiid dagaal oo kale. sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu soo iibsaday hub u badan ee qoriga loo yaqaano BKM 7ka iyo qoriyaha dhashiikaha ah ee gaadiidka la saaro iyo hubka fudfudud. arrimahan ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii ay magaalada Muqdisho gashay xaalad amni oo hubanti la'aan ah taasi oo ka dhalatay muranka doorashada Soomaaliya lagana cabsi qabo in dawladda ay weerarto mucaaradka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah murashaxiinta mucaaradka kuwooda ugu cadcad ayaa sidoo kale waxa uu ugu horeeyay siyaasiyiinta hawiye ee diidan muddo kororsiga uu sameystay madaxweyne Farmaajo. weli magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhanaa dawladda Soomaaliya iyadoo aysan jirin wax dadaal ah oo socda isla markaana lagu raadinayo xalka doorashada ee Soomaaliya. imikana haddii aynu fiirino wararkii ugu dambeeyay shaqadii garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo maanta hakad gashay kadib markii dagaal gacan ka hadal uu dhex maray shaqaalaha ee garoonkaasi. wararka laga helayo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta ay ka dhacday halkaasi shaqaaqa u dhaxaysa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka. shaqaaqadan oo sababtay gacan ka hadal ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale dhalisay in muddo kooban ay hakad gasho shaqada garoonka Aadan Cadde. sidoo kale waxaa gacan ka hadalkaasi ka dhashay xaalad halis ah waxaana dhaawacyo fudfudud ay soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha halka ay burburiyeen agabyo yiilay xafiisyada lagu dhex dagaalamay ee gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. xiisadan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidanka NISA ay isku qabteen dad ajaanib ah oo NISA u socday kuwaasi oo loo diiday in ay gudaha u soo galaan dalka iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe tagay taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadaha Maxamed Aadan Koofi oo xaliyay arrintaasi waxaana si caadi ah ku soo laabatay markii dambe dhaqdhaqaaqa garoonka Aadan Cadde. arrintan ayaa sababtay walaac xoog leh oo soo wajahday shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka howlgala iyo weliba sidoo kale dadka ka safraya amaba ka soo degaya garoonka ee diyaaradaha ee Muqdisho maadaama garoonkan uu yahay mid caalami ah. arrimahan oo kale ayaa waxa ay ku soo noqnoqdeen garoonkaasi iyadoo aysan jirin wax xala oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya arrimahaas iyo kuwa la midka ah ay iyadu u heshay. ugu dambeyntiina maanta magaalada Muqdisho waxaa lagu toogtay mid ka mid ah dhaqaatiirtii ugu caansaneed magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoo warar kala duwanna ay ka soo baxayaan toogashada loo geystay dhakhtarkaasi. kooxaha hubaysan ayaa lagu soo waramayaa inay xaafadda Albaraka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ku toogteen Dr. Xasan Cismaan Ciise oo loo yaqaan Buurane oo ka mid ahaa dhaqaatiirta caanka ah ee Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in dhakhtarka la dilay isaga oo hor fadhiyay guri uu leeyahay oo uu dhismo ka socday kaasi oo ku yaala isla xarunta uu ka howlgalo ee Albaraka. Dr. Buurane oo ku takhasusay xanuunada maqaarka ayaa 30 sano ka badan waxa uu ku soo jiray howlaha caafimaadka wuxuuna mar soo noqday agaasimaha cisbitaalka Madiina. sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in raggii ka dambeeyay falkan ay goobta isaga baxsadeen toogashada kadib waxaana halkaasi tagay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka. ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo dilay dhakhtarkan oo si weyn caan uga ahaa geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan ee dhinaca koonfurta. Allah naxariista Dr. Buurane ayaa si bilaasha ku daweyn jiray sida la sheegay dadka danyarta ah waxa uuna ka mid ahaa dhaqaatiirtii aan dalka ka bixin intii ay socdeen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka qarxay. dilkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa sidoo kale qayb ka noqonaya falal ammaan darri oo maalmihii dambe siyaabooyin kala duwan uga dhacayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. dowladda federaalka ee Soomaaliya weli wax warama aysan ka soo saarin dilka loo geystay Dr. Buurane. sidoo kale ma jirto
howlgallo iyo waxyaabo kale oo ku saabsan dilka loo geystay Dr. Buurane oo ay samaysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse dowladdu waxay sheegtaa in ay iyadu ka shaqeyso mar waliba sidii ay u xaqiijin lahayd ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed. waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeena. fadlan taageerayaashayda sibiskaraab daha si aad muuqaalo idin xiise geliyo qurqurux badan oo sharaf badan oo wanaagsan oo reer weela uga fiirsataan halkaan mahadsanidin.